mudane madaxweyne dhammaan marti sharafta maanta halkan joogta aad iyo aad ayaan idin salaamayaa aad baan u qushuucsanahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahayna ugu mahadnaqayaa ilaahay igu simay inaan goobjoog ka ahaado munaasabadan qaaliga ah ee horumarka dhaxalgalka u noqonaysa dalkayga Somaliland adduunka muujinaysa in Somaliland isku filan tahay muujinaysa Somaliland inay diyaar u tahay inay dalkeeda dhisato dalkeeda ilaashato dhalinyaradeeda iyo jiilka cusub ee soo kacayana ay u hurto hiil iyo hoo wixii gacanta ugu jiraba ardayda maanta halkan aan goobjoog ka ahaa waxay xusuusiyeen beri malaha laga joogo qarniyo badan xeradan agteena ah ee maxaan ku raayay darar weyne ee ciidamada lagu tababaro u malayn maayo inaad islahaydeen islaantan maanta halkan idin hortaagani inay beri yoomka ayaamay ahayd tababare ka ahayd oo ciidanku tababari jirtay waxaanu tababari jirnay ciidanka waa 76 bay ahayd waxaan markaa anigu qudhaydu ka soo baxay xalane gaardiska maanta aad marayseen oo kale aanu mari jirnay waxaanu samayn jirnay tababar intaad samaysanin ka badan oo aanan wada tilmaamaynin laakiin waxaanu qabnay dardar dal jacayl wadaninimo waxaanay i keentay anigoo agaasimo ka ah wasaaradda caafimaadka ee muqdisho caafimaadka muqdisho ayaa haddana dareenku i keenay halkan dayac iiga muuqday tababarka caafimaad ee ciidamadii dagaalada markaa ku jiray ay qabeen bil ayaanu horin dhan aanu ku tababaraynay sida dhaawaca loo dhaawiciyo loo daadgureeyo dhiig joojin loogu sameeyo loo dhayo dhibaatada looga ilaaliyo 8 iyo 9 habeenimo ayaan ka hooyan jiray halkan waxaan doonayaa dhalinyaro maanta waxaad aragteen tababarku iyo discipline-ku wanaaga uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay waad ka duwan tahay maanta 3 bilood horteed sidii aad ahayd waxaad tahay maanta qof tababaran adag ka kan baa tahay waxaanu rabnaa tababarkaad qaadatay inay ka muuqato waxtarka aad u yeelan doonto qaranka Somaliland hormood baa tihiin waxaad u horseedaysaan kumanaan kale oo aan fursadda maanta idinku aad heshanaan helin waxaan aad u hambalyeeynaya agaasimihii suura galiyay tababarkan la yaab maayo waayo waxyaabo badan oo hore oo uu qabtay baan marxaati ka ahaa oo goobjoog u ahaa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay waxaan u mahadnaqayaa madaxweynahayga Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo yeeshay gartay baahida loo qabo in dhalinyarada la dhiirigeliyo la tababaro fursad ay isku muujiyaanna la siiyo aad baan idinku mahadnaqayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay Somaliland inala ilaaliyo cadow badan baad ayaad leedihiin horumarka aad samaysaanba cadow badan buu soo jiidanayaa waynu isku duubnaanaynaa waddankeena waynu difaacanaynaa cilmi baynu ku difaacaynaa caqli baynu ku difaacaynaa dal jacayl baynu ku difaacaynaa waxaynu ku difaacaynaa wixii gacanteena ku jira oo aynaan cid kale magan iyo marti uga ahayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato